dawladdu waa inay diinta ilaalisaa haddii kale waa seefdul xadeyn waa aragnay waana dilay diinta haddaan la ilaalin privately inaan aaminsannahay oo qof walba masaajidka aadayo oo dukanayo oo zakada iska bixinayo oo soo xajinayo oo yeelayo waa sax waa individual laakiin collectively wada jir ahaan doorka ay diinta nagu leedahay waxay u baantahay inay la soo waxaan go'aansanay nimanka inaan marka kula dirno caqiidadii ideology-ga ay qaateen inaan kula dirno group inay yihiin group mafia ah oo muxuu ahay mara weyn oo islaam ah hugsaday marka inaan marada ka faydno oo dadka Soomaaliyeed tusno waa kuwaasa waa mafia group ah saasi u yaalin inaan dhaxo so frontigaasi saasa la yiraa waa aqeedada iyo faithka ummadda in la tusiyo waxa ay nimankan sheegayaan inaan sax ahayn oo waxa saxda ay cagsiga tahay qodobka kale oo ideology-gaasi la socdo waxa waa patriotism dalkan Soomaaliya la yiraa ee figure 7 ka yaa iska leh horta is it no man's land intana loo kale nin ajnabi ah oo ama caraba ama asiyaatiga ama afrikaana in la yiraahdo amiir waaya asaarada xukumo oo dadka Soomaaliya qaarna hal dilo oo yiraa qaarna muxuu ahay xoolooda hal qaato oo yiraa qaarna oo gaaleeyo xageen aadnay maxaa nagu dhacay reality-ga maanta jirta saas waay mana la aqbali kara taas maantan centerka anjurasi CSIS aan ka sheegayan lahay dal Soomaaliya muslimiinta iska leh laakiin muslimiinta Soomaalida ah iska leh muslimiinta Pakistanka iyo kuwa muslimiinta Pakistanka iyo kuwa Afghanistanka iyo kuwa Carabta iyo kuwa Afrikaanka iyo kuwa kale Asiaatiga dalkan lama laha dalkooda leeyihiin dadka saa ula dhaqmayna qaaran dabcan ajnabi waaye qof kasta oo Somali citizen aan ahayn waa ajnabigana sida loo dhaqmo naqana qaaran muxuu ahay soo dhaweynayna oo leenahay dalka waa degi kartiin property ku yeelan kartiin ahlan wa sahlan qaaran leenahay waa ka shaqaysan kartiin property-na kuma yeelan kartiin dalkan qaaran leenahay dalkeena nagama imaa kartiin it depends on sida aan markaasi aan dadkaas ajnabiga ah iyo dawladooda iyo dhaqankooda aan u aragno so frontigaas waxa la yiraa frontiga fikirka ah ama haday tahay caqiide iyo diin iyo haday tahay patriotism lahaansho wadankan haday tahay fronti waa la yaqaano telefishinka gaar ah ayaa dawladdu u sameeyo waysa dada u xil saaran oo u taagan culimo leh dhalinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu tala dhaqan leh dadka inay la hadlaan aan ugu talagalno frontiga labaad laakiin kan saddexaad kii hore aan sheegno militariga ahaa iyo kan aan sheegno oo hadda ah muxuu ahay ideology-ga frontiga labaad waxa waa shabaab maxay ahayd halhayskii dalkan Mareykanka laga sameeyay follow the money it will take you to the terrorist lacagta haddaad daba kacdid dhaqdhaqaaqeeda iyo meeshay maraysa iyo maalinta dambe way ku geynaysaa soo ma ahayn nimankan horta miyiga Soomaaliya oo dhan ayagaa ka taliyo dadka Soomaalidana boqolkiiba 60-65 la gaarsiiyaa miyiga ku nool yihiin xoolay haystaan beeray haystaan waa ku dhaqan yihiin horta dhulkaas oo dhan ay ku nool yihiin dadkaasay ka qaadaan lacagta mar waa zaka ay yiraahdaan mar waa tabarruci jihaadka ay yiraahdaan mar waa cashuur ay yiraahdaan marba magacay u bixiyaan maray qabaa'ilka qabiil hebel ma tiraa $100,000 ay ku qoran keena ay yiraahdaan marba wax horta dadka dhulkaas aad u ballaaran oo dadka Soomaaliyeed badankiisa ku nool yihiin saasay u taliyaan xasoo hara magaalooyinka Muqdisho iyo magaalo kasta ayda meel kasta oo gacmaha lacag ay isu bedesho gacmaha gacan qaadanaysa gacan bixinaysa ay noqoto dhan lacag ka qaataan now trigger that properties ka iibinayso ama soo gadanaysid they are there and then they manage everything through phone jaamac ma lagu yiraahdaa diib lacag hore waxa haystaa laba maalmood lacagta diib hadaa diib waa saada u maqan waana lagu dilaa waa lagu qarxina gurigan maalada cafeteria lacagta bixi wareeya ما يورانيغا شاو العقد مسيا بحوريا بابور قرح أكتر لك سوريا بوك كل $200 لقيها إلا ويدينا $200 يا الخسرة والبرايدان أنكر الله كل عده
kunkoodii labadooda bal naga siiya ammaan hana siiyaan. So that's dhaqanka mafia waa Soomaal mafiyada Europe ka jirtay Italy ka jirtay siday u dhaqmayeen waay laakiin dadkan inay fahmaan oo fahamsiino ayaana laga rabaa annaga gaabis xageena ka jira. So nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalab aan ka xirno frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay meeniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay un dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin yaan ka shaqaynayna lacag la'aan haddii dadka ay magic stick ay wataan ma magic road ay ku taabtaan dadku soconayaan waa la arkaya haddii aan la yiraahdo